soo dhawow daawade waxaan rajaynayaa maalinkii labaad ee ciidda in aad farxad ku ciideyso ilaahay ciidan ciideeda nagu gaarsiiyo farxad iyo barwaaqo intaasi kadib shan maalin kadib magaalada muqdisho waxaa ka soo degay qaadkii laga keeni jiray dalka Kenya oo sababa aan la ogeyn oo halkan aan doonayo inaan kugu bidhaamiyo u xajirnaa magaalada muqdisho maanta waxaa ka soo degay diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya waxaana gaadiidkii ka soo qaadi jiray garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay ka soo qaadeen qaadkaasi iyagoo banaanka u keenay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsada hareeraha wadooyinka magaalada muqdisho ee qaadka iibiya xogta rasmiga ah ayaan rabaa inaan idinkula wadaago daqiiqadahan soo socda iyo sababta muddo 5 maalin ah qaadkii Soomaaliya kaga imaan jiray dalka Kenya oo san u soo caga dhigan magaalada caasimadda ah ee muqdisho muddo 5 maalin ah waxa xayiraad saarneed qaadka ma aysan xayirin dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Kenya balse arrintaasi waxa lagu sheegay in uu yahay muran dhinaca lacagta ah oo soo kala dhaxgalay ganacsatada qaadka ku iibisa magaalada muqdisho iyo sidoo kale ganacsatada qaadka ka soo dhoofisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaana u iib keenta magaalada muqdisho haddaba waxay tahay sababta rasmiga ah ee la isku khilaafay xogo aanu helnay ayaa sheegaya in qubaro dhinaca qaadka ah oo ka socda dalka Kenya in ay soo gaareen magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay xooraansi ku sameeyeen qiimaha kala duwan ee la iibiyo qaadka loo iib keeno magaalada muqdisho arrintaasi waxay u noqotay mid u cuntami weysay ganacsatada Kenyaanka Soomaalida ah ee halkaasi qaadka ka soo dhoofiya sidoo kalena magaalada muqdisho keena waxa la sheegay in qaadka qiimaha ganacsatada Soomaaliya ay xagga uga soo qaadaan in uu yahay mid aad u hooseeya balse marka magaalada muqdisho ay keenaan in ay iibiyaan qiimo ka badan qiimihii halkaasi ay uga soo qaadeen ama ku laba jibaarma marduufka qaadka ah ayaa la sheegay in magaalada muqdisho xilligan uu ka marayo lacag u dhaxaysa $80 ilaa iyo $100 Mareykanka ah ganacsatada qaadka waxa ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid xilligan ay keentay in ay sare u qaadaan in la isku fahmi waayay lacagaha looga keenayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaadka Soomaaliya loo iib keeno sababtaasi ayaa keentay in ay cirka isku shareerto qiimaha la kala siisanaya qaadka sidoo kalena xogaha aanu helayno waxa ay tilmaamayaan in ganacsatada Kenyaanka ah iyo kuwa Soomaalida ah ee qaadka iyo lacagaha isdhaafsada in ugu dambeyntii ay ku heshiiyeen in qaadkii magaalada muqdisho la keeni jiray dib loo fasaxo balse ay u cuntami weysay lacagaha ganacsatada Soomaalida ah ay ka soo siiyaan marka Kenya laga soo qaadayo kadibna ay muqdisho ku iibiyaan lacaga ka duwan lacagahaasi amaba ku saddex jibaarma hadda magaalada muqdisho qaadkii dib ayuu u soo laabtay isjijiid dheer kadib iyo ganacsatadii labada dhinac oo is afgartay balse maanta waxa la tilmaamayaa in qaadku uu yahay mid qaali ah oo dadkii iibsan jiray ay u dhawaan laayeen xilligan maadaama lacag ka badan $80 la iibinayo marduufka qaadka ahaa ee markii hore loo siin jiray $60 ilaa $50 lacag u dhaxaysa sida ay inoo sheegeen ganacsatada qaadka qaarkood oo aanu la hadalnay sidoo kale rubci qaadka ahaa ayaa xilligan waxa uu marayaa lacag dhan $37 ilaa iyo $35 Mareykanka ah waxaana la sheegay in horey loo iibin jiray $12 Mareykanka ah arrintan ilaa hadda waxa la tilmaamayaa in ay salka ku hayso ismaandhaafkii soo kala dhaxgalay labada ganacsato taasi oo keentay in qaadka muqdisho uu 5 maalin hakad galo dib markii loo keenana qiimihiisa uu cirka isku sii shareero xogahan iyo wixii ku soo kordhay iyo wararka la xiriira arrimaha qaadka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararkeena iyo warbixinadeena soo socda waad mahadsantihiin ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid siciid